gudoomiyaha gobolka Sanaag maayirka degmada Ceerigaabo oo ay wehelinayaan afayeenka madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland oo shirjirayd maanta si wada jir ugu qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ayaa shaaciyay deeq raashin oo loogu talagalay in loo qaybiyo shaqaalaha macallimiinta iyo dadka danyarta ah oo soo gaadhay gobolka Sanaag deeqdaasi raashinka oo ka timi gudida ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer qaran waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro iyo maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur waxaana soo gaaray kaalmadii ayna soo gaarsiisay gudida qaranka ee COVID-19 ama coronavirus gudidiisa ka hortagga raashin dhan 3800 oo qoys loogu talagalay raashinkaas oo la gaarsiinayo dadkii ay shaqadoodii ka waxyeeleeyay karantiinkii dadka la saaray amba shaqooyinkii la kala fasaxay sida macallimiintii ka hawlgeli jirtay shaqaalihii ka hawlgeli goobaha waxbarashada kale shaqaalihii kale iyana saas leeg dhibaatada ugu dhacday naafadii iyo danyarta intaba raashinkaas waxa loogu talagalay magaalada Ceerigaabo kaliya insha Allah waxaan jecelahay anana sida ugu quruxda badan inaan ugu qaybino dadka loogu talagalay u gaarsiino waxa noo raaca ifo waana laga quusay dadkeenni waa isbasriya u baalaleeyay cudurkan waxba inay yeeli maayo haddana isbasrinee laakiin isbasriyadu waxa dadka inay ka dhagaadayaan shalay ciidan iyo gaaraan diray waliba ganaaxna waanu saaray aan leenahay cidii ku dhaqmi weyda ama wiirtii la faray hal ganaaxo qofka ganaaga bixinayna xiriirka loogu bedelo waanu dadaalaynaa dadka waxaan ka codsanaynaa war dadaalka anagu nafteedu u dadaalmayna tiinaanu dadaalayna la garataan raashinka tiradiisa uu sheegay barasaabku ayaa gudida qaranka COVID-19 ay u soo ogolaatay magaalada madaxa gobolka Sanaag Ceerigaabo waa ugu mahadnaqaynaa waxaan loo qaybin doonaa si loogu talagalay dadka reer Ceerigaabo waxaan u sheegaynaa in badan baynu gawaari saaray mikrofoono telefishinada oo dhan baa daawataan habeen walba dheg uma dhigaysaan waxaanu jiraan ma aaminsanidin xanuunkiina wuu jiraa mawd midna ka carar maayo maalinta nin walba dhimanaya laakiin in laga dadaalo oo lagu dadaalo in xanuunkaasi laga nabad galo waa arrin sharci weey waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo wasiir ku-xigeenka horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Sahal Maxamed Jaamac gudida heer qaran ee ka hortagga cudurka COVID-19 iyo la dagaalanku waxay u qoondeeyeen gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay gaarsiiyaan deeqo kala duwan taasi oo loogu talagalay in lagu kabo dadkii uu shaqadooda iyo hawl maalmeedkooda uu saameynta ku yeeshay maadaama aynu xidhnay goobihii waxbarashada goobihii la isugu yimaanayay iyo goobihii ay ka socday isu socodka iyo ganacsigu taa bedelkeedana xukuumaddu iyadoo muujinaysa doorkeeda iyo dadaalka ay dadka la garab galayso waxa loo qoondeeyay magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag in la soo gaarsiiyo 3800 oo qoys inoo wada yaala inuu qaadano awaamiirta gudida iyo talooyinka caafimaad ee la inoo soo jeediyay si aynu uga badbaadno cudurka Ilaahay naga badbaadiye ninkii waxayo talo iyo tusaale dadku kaga baahan yahay iyo wax qabad hada adduun ku beeri karto laakiin taritii siyaasadda laga baaray maaha tii la iska toosinayay maaha tani waa cudur caalamka ku habsaday in meel looga soo wada jeesado difaac in wada xirano mucaarad iyo muxaafid baba loo baahan yahay bulshada reer Soomaaliland walaalayaal waxay gelinta qaata waxa ummaddu leedin sheegay qaata wax leedin kaga doonaya ma jirto Yunus Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo